haddii aad face wash kan baratid uma xiisi doontid mana isticmaali doontid face wash aan ahaynin. face wash kan wuxuu kaa saacideynayaa inuu wajigaada ka dhigo liisho, nabraha ka saaro, dulduleelka, haaraha iyo madmadowga. intaas buuxa leedahay bye bye iyo macsalaame ee marka hore bal soo tijaabi. fadlan haddii aad markii ugu horreysay aad soo booqatid channelka Karin Qurxin, subscribe dheh, beelkana on ka dhigo. insha Allah face wash kan wuxuu noqon doonaa mid aad mar waliba isticmaashid ana u bogtid. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمان وإد سلامي انت كحرن جانلك كارين إيه قرحين. فالله وحلي دين قعد صنايا هدي اتامر كوغو رئيس أسوب وقت جانل كارين قرحين سبسكرايب به بيل كارون كاريغا لايك تنصار una sii share garay asxaabtaada. haddii aad tahay asxaabti ka faa'iideysatay ee nala joogtayna waxaa lagaa codsanayaa adigana sidoo kale inaad like ta saartid sida aad uga faa'iideysatay si la mid ahna inay uga faa'iideystaan gabdhaha kale aad u share garaysid insha Allah. maanta waxaa idin wadaagayaa face wash dabiici midkaas oo aniga aan isticmaalo mar walba waxaan idin dhahaa face washada iska daaya, saabuunada iska daaya, isticmaala waxyaalaha dabiiciga. maanta ayaa idinkaga faa'iideynaya. waxaan haystaa liin iyo aloe vera iyo malab. waa saddex shay. liinta waxaan ka isticmaali doona in yar ama hal dhibic ama laba dhibic. intaas aniga laba dhibic markaan isticmaalay waxaan isticmaal rabnaa saddex qof ayaa face wash kan u isticmaal rabnaa oo wajiga ku dhaqan rabno. haddii aad hal qof tahana hal dhibic ayaa isticmaalaysaa. hadda liinta ayaan wax yar miiraya. waxaan rabaa inaad ka isticmaal laba dhibcood oo kaliya kugu filan. haddii aad wax badan ka isticmaasho ama liinta dhan aad ku tuujisid ogo wajigaada wuxuu yeelanayaa xanaf, wuu dildilaacayaa, wuuna ku hurayaa, waxna way ka fuulayaan toxob camal ah. iska yaray liinta waxay aad iyo aad uga qayb qaadanaysaa wajigaada inuu ku dhalaalo, ku iftiimo, fitamiinkii uu raban uu ku qaato. fitamiin C fara badan ayaa ku jiro midkaasoo mar waliba lagu taliyo dadka inay fitamiin C ga wajigooda ee kula dadaalaan, cunaan, marsadaan. ma fahamteen? markii aan liinta ku darsada waxaan ku soo darsadaa qaandada halfkeed oo aloe vera ah. kadibna waxaan ku darsanayaa malabkii markaas ahaystid nuucu doona ha ahaado isticmaal. malabka maxaan ku darsanaa asagana qaada halfkeed. intaas ayaan waxaa ku isticmaal rabnaa saddex qofood. alaabtan ma ahan alaab meel la dhigaayo ama fridge ku jirayso. markii aad rabtid ayaa samaysanaysaa. aniga waxaan samaystaa isbuucii 2 ilaa 3 jeer ayaan wajiga ku dhaqdaa. inta kale biyo ayaan isticmaalaa. haddaba haddii aad face wash ka isticmaashid ama aad iska yaraysid saabuunada iyo face washada tiro badan aad wajigaada marinaysid, wajigaada waxaad arkaysaa ku dhalaalay, kuna iftiima. sababtoo ah saabuunka iyo muxuu ahayn face washada tirada badan wajiga waxay ka qaadaan dheeha. ha u malaynin inay qurux ku siinayaan. biyaha caadiga isaga dhaq isbuuci 2 mar ilaa 3 marna alaabtan ku dhaqa. hadda adiga arki doona inaa noqotid gabadha ugu shidan xaafadiina iyo xuural caynta dunida. waan la iskaan weydiin doona maxaa wajiga ku dhaqataa iyo maxaa marsataa. marka malabkii iyo aloe veradii iyo muxuu liintii labada dhibcood ahayd ayaan isku qasayaa. si fiican ayaan isku dhexgelinaya. markii aan isku dhexgelina sidaas aa ujeed oo ku soo baxay. marka face wash kan sidee yeelaysaa wajigaada ayaad marsanaysaa, cabaara ku massage garaynaysaa. waan idin tusi doona aniga ku massage garaysanaya wajiga. kadib ayaa iska dhaqaysa saan ina marmarisid, yani hore ma ka dhaqaysid, wax yar ayaa ku haynaysaa. alaabtan waxay leedahay inay ka qaado nabraha soo noqdo, nabraha yariiska ee shucaaca dadka aan wajigooda uusan noqonin liishaha, dadka wajiga haarta kale. liinta iyo aloe verada markay is helaan awood waxay u leedahay inay dadka cadayso, cad ee ka dhigayso waliba sida daamanka oo kale aad ay uga qaadaa. si fiican ayay u cadaysaa. haarto kale aad ay uga qayb qaataa. nabraha ee haaraha keenaan, nabraha soo noqdo wajigaada waxay siinaysaa fitamiin fara badan. iyo waliba dadka aan ku daray wajiga excess oil kale, aniga dadkaas ayaa ku jira wajigooda oilka zaid kale. waxaan u isticmaalaa saabuun oo dhan iyo kareemyada qaar aan uga quusto. waxaa waaye wajigayga saliid badan ayuu leeyahay. wajiga markuu saliid badan leeyahay wajiyaasha kale wuu ka duwan yahay. saliidan in laga dhaqo waa loo baahan yahay. haddii aadan ka dhaqin saliidane wuxuu kugu noqonayaa dib. hadday kugu noqoto adiga dhan madow iyo bahdilan ayaa dareemaysaa. laakiin alaabtan oo kale markii aa heshid maasha Allah marka waa qaadanay sida sadda 2 far ayaan ku qaaday. sida ujeedid wajigayga ayaa marinaya. marka dhamaantiis ayaan soo marinaya. wajiga ayaa marinaya. markii aan mariyo ilaa intuu ka qalalayo marka waxaan isticmaalayaa labadeedas far 3 ilaa 4 daqiiqo aan farahaygaas u isticmaalaya. indhaha hoostooda, sanka hoostiisa, garka, meel walba daamankeyga si tartiib ah ayaa ugu massage garaynaya anigoo labada far isticmaalaya. markii aan dareemo inuu ii qalalo
4 ilaa 5 daqiiqo camal oo aan dareemo inuu qalalana kadib biyo ayaa isaga raacinaysa isla markiiba waxa arkaysa adigoo iftiinka dhalaalka iyo quruxda ayaabi doontid marka maxaa idin leeyahay please asxaabay haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqatay channelka qurxin subscribe beelka on ka dhig haddii aad gabdhii ka faa'iideysto hor noola sii joogane u sii share gareeya asxaabtiina kaligiin ha isku koobinaha baqiil ha noqonin kaligiis waxa ka faa'iideysto u sii share gareey saaxiibta u sii share gareey gabadha taqaanid u sii share gareey gabadha diriskaad si ay uga faa'iideystaan ugana kaaftoomaan waxyaalaha ay mar walba isticmaalayaan ee faa'iido mudan waxna ay ka tari waysay hadda waa aragteen gabdho badan ayaa ka faa'iiday natiijo ka gaaray ayagana si natiijo uga gaaraan ha tijaabina ayagana markooda waa wax dabiici waxaas waxbana aan ka dhibaynin midabkaada aan ka guurnaynin haddii aad dhargan tahay iyo haddii aad baahantahay isku midab ayaa yeelanaysaa ha noqonin qof dhowr midab leh ha noqonin qof marcad marna madow quruxda ma ahan cadaan quruxda waa qofka inuu yahay qof dabiiciya oo qurux badan oona dhalaalayo oona iftiimayo biyaha badanna caba gabdho biyo badan isticmaala biyo la-aan ha isku dilina haddii aad biyaha aadan cabin jirkaada wuu qallaalayaa mana iftiimayo mana qurux badnaanaya biyaha qofka muxuu siiya inuu dhiiggiisa sifeeyo markuu dhiiggeeda sifeysmana maasha allah adiga dhan qurux ayaa kusoo baxaysa cagaarkoo kaleeta asigana aada u wanaagsan cuna shiita caba keliya wax korka laga mari dadka ma qurxiyaan mar walba idiin sheegaa waxyaalaha dabiiciga isugu dadaala cuna oo caba ma ahan inaa muxuu ahayntood kaliya wax korka marisid ama kareen marisid ama kareen marso ama iscaday ama iscadaynin mar walba iskugu dadaal inaa wax cagaarka cuntaan cabtaan aad iska yareysaan waxyaalaha muxuu ahayntood kiimikada la iyo waxyaalaha sokorta ka badan tahay adiga dhan maxaa noqonaysaa xuurul caynta dunida iyo gabar aad iyo aad u shidan oo qurux badan ya marka maxaa idin leeyahay insha Allah fadlan dhowr mar idinku soo celiyay isku xishooda haddii aad markii ugu horeysa aad soo booqatay channelka qurxin subscribe dheh haddii aadan hore noogu saarin oo macaamiishan ka mid tahay subscribe dheh meesha guduudan taabo beelka yacni geeska koorta yar dhagkasi geesaha markuu koorarka yeeshto like tana saar u siina share gareey asxaabtaada ha ka faa'iideystaan insha Allah dhammaantiin waxa idin leeyahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin insha Allah guulka gaartiin dhammaantiin ay idin wada shaqeyso gabdho badan ay soo weydiyo timaha wax badan soo gelisaa face-ka wax badan soo gelisaa kee marsanaa kee iska dhaafnaa dadka isku si ma ahan timahooda iyo wajiyadooda qofba wuxuu ka helaya midka adi ka heshid oo markaas ku shaqeeya midkaas ayaa midkaada isticmaal dhowr jeerna waa sheegay midkaas ayaa midkaada isticmaal laakiin aniga dhammaantood waa marsadaa haddana waxa jira kuwa aan si qaas u sii jeclaa kuwa aan si qaas u jeclahay oo kuwa qaar iiga duwanaa jiro oo markii aan sameeynayo aad iyo aad ugu raaxeysto kale aan jeclahay oo markaa marsad miraayada isku fiiriyo face wash kan oo kale hadda waa wax mar walba aan sameeysta aniga maalin kadib ama laba maalin kadib waa sameeysta wajiga ku dhaqdaa oo wajiga ayaan ku dhaqdaa wuu iiga duwan yahay kuwa kale waa wax aniga mar walba aan isticmaalo dheelucsa madika adigana midkii aad ka heshid isticmaal oo sababtoo ah waxa way qofba wax ayaa u shaqeeyo qofba wax ayaa qof mid qaar ayaa cadaanka dhigayo qof mid qaar ayaa nabraha ka tiraayo qof mid qaar ayaa haaraha ka binayo waxaan idinka tagay salaanta islaamka salaam calaykum waraxmatullahi